Ma ogtahay daawade in uu jiro hal hamiin oo u dhigma 83 sano. Hamiinkaasi waa Laylatul Qadriga, waa hamiinka ugu weyn hamiinada, waxaana dhulka soo booqan doona kumanaan ama malaayiin malaa'ig ah. Waxa ay hamiinkaasi malaa'igta soo booqan doonaan guriyaasha, waxa ayna salaami doonaan qof walba oo markaasi cibaadaysanaya ama ducaysanaya. Qofkii ay la kulmaan isaga oo ducaysanaya, waxa ay u dhahayaan aamiin. Haddii qofka aamiintiisa iyo malaa'igta aamiintooda ay iswaafaqaan, ducadaasi waa la aqbalaa. Sidoo kale hamiinka Laylatul Qadriga waxaa malaa'igta loo dhiibi doonaa diiwaanka macluumaadka sanadka oo dhan. Waxaa la ogeysiinayaa qof walba oo sanadka gudihiisa dhimanaya ama midka noolaan doona, iyo dhibaatooyinka ama guuldarrooyinka uu qofkaasi ula kulmi doono. Hamiinkani waxa uu Qur'aanka ku tilmaamay in uu ka qaalisan yahay 1000 bilood. Haddaba haddii 1000 bilood sanad ahaan loo bedelo, hamiinkanina loo qaybiyo, waxaa soo bixi doonta in Laylatul Qadriga u dhigmo 83 sano oo cibaado la sameynayay. Haddaba daawade, adigu maxaad ku ogtahay hamiinkaas qiimaha badan? Horey ma ula kulantay oo Ilaahay ma ku waafajiyay hamiinkaas qiimaha badan? Ilaahay waxaan weydiisanaynaa in aniga iyo idinkaba uu nawaafajiyo hamiinkaas qiimaha badan. Intaas ayuu ku ogyahay muuqaalkeena. Waxaan leeyahay fi amaanillah.